xilliga ramadaanka unugyada daciifka ay qofka ku jiro dhan way la'anayaan maadaama unugyo cusub lagu soo bedelay qofku wuxuu noqonayaa qof fresh mar hadda sooman tahay waa adiga oo caafimaad qaba soonka dad gaala ayaa rababa inay nala soomaan macadalay adiga oo muslina muhiim ayay ku tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن صاحبيال مقعي ودكتور سمير عبد الله بوتان مانتا وحا يسو بدونا حلقة كسابسان صنكا يا عافيماتكا حلقة مانتا وحميسكا إنو ساران عوان مهم واه كاسو دفاع الشركة إنو اسلمو إنو سرا أقعو حلق قفكا أسومية waxaan wada ogsoonahay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan qofka maadaama uu sooman yahay wuxuu wajahayaa saacado fara badan kuwaas oo soo xana cuneynin waxna cabeynin maadaama qofka uu 12 saacadood ka badan sooman yahay oo soo waxna cuneen waxna cabeynin jirka wuxuu noqon doonaa inuu gaajo dareemo sidoo kalena uu dareemo jirka bini'aadamka unugyo fara badan ayuu ka kooban yahay unugyada uu jirka ka kooban yahay waxa dhacaysa in ay dareemaan gaajo aad u fara badan markii ay gaajo aad fara badan dareemaan unugyadii aad ka u liitay ee jirka ku jiray way dhimanayaan ama jirku wuxuu gelinayaa program la yiraahdo programming cell death oo waxa la dilayaa unugyadaas maadaama ay ku tabcaan yihiin ayna waayeen wixii ku qoodan lahaayeen sida caadiga markii shay halaabo waxaan ku sameeynaa dayactir sidaas lamida jirku wuxuu isku sameeyaa dayactir xilliga looga faa'iideysto ogayahana waa xilliga ramadaanka unugyada daciifka ee qofka ku jiro dhan way la'anayaan waa xaaladda aad dareemi karto maalmaha ugu horeeya qofku soomaya maalmaha ugu horeeya qofku soomayo wuxuu dareemayaa xaalad aad u tabardara xaalad oo qofkii uu wax badan awoodi karin taasina waxay tahay difaaca jirka ayaa ka shaqeysanaya jirka qofka unugyada kuwa fiicanina waxay noqon doonaan kuwa hore u socday kuwa liitan waxay noqon doonaan kuwa la laayay oo la dilay meesha ay kuwaasi ka bixeenna jirku wuxuu ku soo bedelayaa new cells unugyo cusub maadaama unugyo cusub lagu soo bedelay qofku wuxuu noqonayaa qof fresh marka qofka qof fresh noqdo unugyadiisu waxay noqon doonaan kuwa difaacaya unugyada ugu muhiimsan ee la bedelahay waa kuwa dhiiga iyo kuwa jirka difaaca markasta oo qofku helo unugyo cusub oo tiro badan waa markasta oo difaaciisa sare u kacayo sidoo kale marka aan difaac leenahay jirka xilliga soonka waxa kale oo ka dhaca wax loo yaqaan detoxification jirka waxa laga saaraa sunta qofku maadaama uu 12 saac sooman yahay calooshiisana ay wax cusub galaynin waxa dhacaysa in caloosha iyo mindhicirada ay wax dhan nadiifiyo sidoo kalena sunta jirka ku jirta aad loo yareeyo xilliga ramadaanka qofka soomani waxyaabo badan ayuu ka faa'iido caafimaad ahaan dunida horumartay dhaqaatiirta waxa arkaysa qof qaba cudurka kansarka oo la leeyahay waxba lagama qaban karo laakiin waxa tareegaraysa in aad soonto bil isku xigta waaga hore magaaladu soonka waxay u yaqaaneen kaliya in cuntada loo go'o laakiin biyaha la isticmaalo ayaamahan dambe waxa soo baxaya research fara badan ay sameeyeen oo leeyihiin macnaha inaad soontahay waa inaad bil dhameystiran soonto waxay ku fiican tahay inaad bil dhameystiran soonto ama asbuuci 2 maalin ka soonto sida anagu aan isniinta iyo khamiista u soomeeyno kale bisha dhameystiran adaa soomeysana macal biyaha waa inaad ka tagtaa cuntadii iyo biyihii wixii markuu qof ka tago unugyo cusub ayuu jirkiisu diyaarinaya kuwii hore si aan idin sheegana markasta unugyada gaajoodaan waa markasta oo ay dhintaan kuwii horeeto markasta oo shay qaraab ahi oo waayo wixii lagu qoodinayay waa markasta oo dhimanayo laakiin shayga adag sida hadda aan ognahay geela 30 bari uu qadin karaa laakiin dadka iyo lo'da loo mid ahan macnaheedu waxay tahay jirkoodu uu ka duwan yahay hab qaadashada geelu uu ka adkaysi badan yahay unuga cusub marka wasaas oo kale uu ka adkaysi badan yahay unuga dhaawacan ama duqoobay saas darteed booskaasi maadaama unugyo cusub lagu bedelayo taasi ama researchkaasina wuxuu ku cadeynayaa dadka kansarka qaba sababta loo leeyahay sooma bisha bil isku xigta macnaheedu waxay tahay in daawooyinka caadiga ay xabiib kale wax looga qabo waay saas darteed oo soonku xitiraay ummadannada muslimiinta ahna Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ina faray inaan soono marba haddii waajib noogala dhigay macnaheedu ma ahan oo kaliya inaan ajir ku raasano waxa ku jira caafimaad aad u fara badan bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan wada ognahay in ajirkeeda oo Allah subhanahu wa ta'ala bixinayo laakiin waxa ogaataa in ay tahay caafimaad adiga jirkaaga lagu hagaayo 12 bilood ayaa badar soo cunaysay haddii oo wax taray hal bil adii lagu ka soon in laga soomahay waa wax aad u fiican qofkana waxay u taraysaa waxyaabo aad u fara badan sida hadda aan ku sheegay ama mawduucana maan diirad u saaray oo hab difaaca jirka marka lagu leeyahay waxaan ku sheegay in unugyo cusub la dhisaayo in ku haleysnaay ama dhaawac ahay la baabi'inayo sidoo kale dadka kansarka qaba in loo siyaadinayo dadka kansarka qaba macnaheedu waxa waaye dadka kansarka qaba kansarku waa unugyadii jirka oo batay oo waliba kuwa xanuun qaba
laakiin haddii kuwii xanuunsanay laga kansalo qofka kuwa cusub oo cudur qabin loogu bedelana taas caafimaadka halkaas ayaa ka helaya marka waxaan leeyahay soonka ha laga taxadaro soonku ma ahan wax dheedheel ah waa bil oo inay naga dhamaato xataa dadka qaar ay aad u dhibsanayaan dadka qaar ay dhibayso inay soomaan oo qaar waxa arkaysaa kuma marsoonaya xanuuno ayaa ahaaya iyagoo weliba xanuun aad u weyn usi jirin waxaan aragnaa dad badan oo Soomaaliyeed oo ku marsiyoonaya soonka inay soomaan inay gaas qabaan waxaan leeyahay gaaska asaga u daawo ah saas darteed bisha barakeysan ee Ramadaan in aan soontahay adiga ayaa caafimaad ku tahay haddii aysan caafimaad noo ahayn ama wanaag nagu jirina Alla subxaanahu wa ta'aala nama fareen waxa ogaataa shay kasta oo nala faray in uu yahay shay anaga muhiim noo ah hadduusan muhiim noo ahayn lama fareen waxaa tusaale kuugu filan maalinta ka dambayda in dunida horumartay ee researchka iyo baxsiga ku shaqaysatahay ay ogaanayaan waxyaabo annaga mar horena loo sheegay annaga waxa mar horena loo sheegay soonka inuu nagu jiro caafimaad inuu nagu yahay waajib inaan ajir ku helayno inaan maalinka qaam ku fakanayno waxyaabo fara badan ku haysanaa adoo intaas ku haysto oo lagu dambi dhaafayaa haddana waxa ogaataa adduunyadaadana kama marno mar haddaa sooman tahay waa adiga oo caafimaad qaba soonka dad gaala ayaa rababa inay nala soomaan macadalaya adiga oo muslina muhiim ayay ku tahay